inta aad dadka caynaysa labadaa kelimadood dhe inta aad ilaahay diintiisa ka durugsanaysa ama aad ka fogaan lahayd kelimadooyinkaa dhe carabkaa ku khafiif ahee carabka way u sahlan yihiin oo ka daali maayo kana noogi maayaan xabiibka iyo allaha raxmaanka agtiisa ayaa loogu jecel badan yahay miisaanka qiyaamo ayay kuu cuslaynayaan maca daalika isku dirka hala joojiyo aad iyo aad ayaan ugu badannahay maanta xaaladaa inaan samayno haba ugu sii badnaadaana dumarkee mar walba waxay ku dadaalaan sidii dhibaato iyo shaxna ay ku dhici lahayd sidii colaad ummadda dhexdooda looga abuuri lahaa qoys wanaagsan oo dhisan sidii laysugu diri lahaa qoys dhaqmaya oo hagaagsan sidii dhibaato iyo shar looga dhex abuuri lahaa waa waxa ay hawsha ka dhigteen dumarka maanta jooga dumarkii hore waxay hawl ka dhigan jireen diinta inay ku dhaqmaan rasuulka ay u yimaadaan oo ay diinta ka bartaan oo ay ka faa'iidaystaan oo ay dhaqangeliyaan inay masaajidada soo xaadiraan oo wacdiga iyo salaada ay goobjoog ka ahaadaan inay jasadkooda cadaabka ka ilaaliyaan inay diinta alle ku dadaalaan inay jasadkooda qarsadaan inay xaqa taageeraan inay mararka gobol ka mida jihaadka ay u kacaan kuwa maanta jooga waxay hawl iyo shaqo ka dhigteen salaada oo laga tago haddii la tukanayana waqtiga oo dhammaaday la tukado waxay hawl ka dhigteen diinta alle dhegaysigeeda booskii loogu talagalay inay heesaha iyo fisqiga dhegaystaan meeshii loogu talagalay in diinta alle la barto inay bartaan waxyaabo ilaahay uusan raalli ka ahayn meeshii loogu talagalay ummadda in la wanaajiyo inay ummadda isku diraan oo galab walba marka casarka la gaarayo bimaadaan oo ay ku shaahaan ama ay ku qaxwaystaan inay dadka namiim iyo isku dir ay ku sameeyaan hebel ayaa sidaa ahaa oo ku yiri iyo heblaaye ayaa sidaa ahayd oo arrintaa tiri war joojiya ilaahiinana ka cabsada subxaana wa tacaala isku diridda waa shay aad iyo aad u xun waa shay aad iyo aad ilaah u diiday subxaana wa tacaala namiimnimadu waa ficilada iyo arrimooyinka la sameeya midda ugu xun ilaahay raalli kama aha wuxuusan rabbi raalli ka ahayn ha ku hadaaqin ha ku dhawaaqin hana samaynin hana fulinin ilaahay si aad agtiisa wanaag iyo sharaf iyo horumar iyo khayr aad uga gaarto taa ayaa wanaagga iyo khayrka ku jira ummadow dadaala oo rabbigiina ka cabsada subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam asxaabtayda hadallada ay dhahaan ha ii keenina waayo waxaan jeclahay inaan u soo baxo anigoo laabtayda nadiif ay u tahay ayadoo laabtayda nadiif ay tahaan rabaa inaan u soo baxo hadday dhacdo inay wax dhahaan dhaafa yaan la iisoo naqlinin yaan lay keenin yaan la iisoo sheegin ayuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida ayaa nebiga xoolo qaybiyey wuxuu u badiyey nimankii mu'allifa qulubta ahaa oo qalbigooda la soo dumaayey boqol halaad ayuu siiyey sala allahu calayhi wasalam nin ayaa yiri ayuu siiyey nebiga nin ayaa yiri qaybtaan waa qayb aan lagu cadaalad samaynin waa qayb aan alla wejigiisa loogula jeedin subxaana wa tacaala waxa sidaa la dhahayo waa nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka ka soo haray inay dulqaataan oo ay sabraan ayaa loogu talagalay wax walba oo la yiraahdo hadal walba oo la dhaho oo dadka xaggooda laga soo gaarsiiyo waa inay u dulqaataan ay adkaystaan nebiga oo lagu tilmaamay inuu ummadda u cabsi badan yahay alla uu ugu dhow yahay taqwada iyo alla cabsigiisa ay meel dheer joogto ayaa la yidhi waa qayb uusan cadaalad ku samaynin muxamed waa qayb aan loola jeedin ilaahay dartii sidaa ayaa la yiri rasuulka nin saxaabada ka mida ayaa u geeyey oo yidhi sidaa ayuu hebel ku lahaa nebi rasuulkii allow rasuulka wejigiisa ayaa doorsoomay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yaa cadaalad samaynaaya haddii nebi moxamed uusan cadaalad samaynin haddaan aniga caadil noqon waayo wuu khasaaray ayuu dhahay nebiga intaa ka gadaal wejigiisa wuxuu noqday ayaa la yidhi sidii rinjiga oo kale intaa kadib ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam waa iska sabraa aniga sababtu waxay tahay allah u naxariista muuse waa nebi muuse calayhi salaam waa la dhibay arrintaa wax ka badan ayaa lagu dhibay waana u sabray ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba dadka iimaanka lah waxaa laga rabaa haddii hadallo loo soo naqliyo oo nin fasaad iyo waxyaabo kala wata hadal uu u keena inuu hadalka bayaansado inuu hadalka caddaystuusan iska duulin xaaladaha noocaasa ayaa mamnuuca dadka hadallada idin keenaya hadalladooda ha qaadanina ileen dad faasiqiina ayaa ku jira oo ummadda raba inay fasahaadiyaan ay iska hor keenaan oo wanaagga bulshada markaa necab dadka xaaladoodu ay sidaa tahay aad iyo aad uga feejignaada maalin maalmaha ka mida ayuu nebigu nin meel u diray oo yidhi sakada iiga soo qaad
ninkii markuu baxay intuusan tegin ayuu ka cabsaday inay dadku dhibaato gaarsiiyaan loo diray waa iska soo noqday oo nebigu isaga soo noqday asagoo goobtii iyo meeshii loo diray aan gaarin ummadii loo diray markay maqleen nebi moxamed ayaa nin idin soo diray sadaqaadkii iyo zakadii ayay diyaariyeen wixii loogu talagalay ayay hagaajiyeen asagana soo dhowayn fiican ayay u diyaariyeen asaga ma gaarin waa iska soo noqday markaasuu dhahay rasuulkii allow zakadana way ii soo diideen inay idilaan ayayna u dhowaadeen markii sidaa uu yidhi ninkaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu damcay in nimankaa zakada sidaa u diiday ninkaa nebiga diray damcay inay dilaan inuu duulaan ku qaado asagoo arrintaa damcay ayuu yidhi ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in war dadka iimaanka leh oo rabbi rumeeyayow nin faasiq ah oo ilaahay diintiisa ka furtay oo fisqi iyo xumaan ku socda oo raba inuu dadka iska hor keeno hadduu naba iyo war idinkeena haduulina in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu caddaysta ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala hadalkan wax maa ka jira ma samaya xaaladaasay tahay ma dhici karta hiblaaye inay sidaa i dhahdo arrin noocaasa qofku waa inaad u dannisaa waxaan la hadlayna waa dadka hadalka loo keenaayo sidaa ha yeelin ayuu dhahay ilaahay ee faasiq hadduu hadal idin keeno oo wax uu idin soo gudbiyo ee uu damca namiim iyo iskurdirdirnimo inuu idinla yimaado hadalka caddaysta waayo waxaa laga cabsanayaa inaad qoom is-asiibtaan idinkoo jahli ku sugan oo fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin hadduu wixii aad samayseen aad ka qoomamaysaan ood ka shalaysaan xaaladaa ayaa dhici karta hiblaayaa hadal lagaaga keenay waad u duushay ayadu beri ayay ka tahay oo wax ay keentay ama ay sheegtay ma aha